بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبضي داوديال مeel kasto naga daawaneysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena wargeysada iyo waxyaabaha quraan oo si toos ah uga daawaneysaan shaashada telefishinka caalamiga Sab TV xaruntu ku leeyahay magaalada Hargeysa barnaamijkan waxa uu diyaar ah inuu la socodsiiyo anigoo Xamse Xirsaxida alaba barnaamijkan wargeysada waxaan ku soo qaadanaa muuqaalo warbixinooyin waliba wararka ugu xiisaha badan leh daabacaan wargeysada maxalliga iyo kuwa caalamka intiisa kale barnaamijkan wargeysada waxaan ugu talagalnay daawadayaashayada inay dhinacyo badan oo dhanka caafimaadka dhinaca bulshada iyo waliba dhinaca horumarka inaan ugu soo bandhigno barnaamijkan wargeysada waxyaabaha quraan haatanna aan soo qabto qodobada ugu xiisaha badan leh ee aan filayo inay daawadayaashayada si gaar ah ay uga wada heli doonaan Nigeria oo shacabkeeda uga digtay in ay u safraan dhanka Mareykanka shimbiro basaasina oo khaati billah ay ka joogaan wadamo kamid ah dalkaasi Mareykanka dawo loo helay xanuunka halista badan bini'aadamka ku ah ee HIV-ga oo iyadana dhawaan la soo saari doono waa tahay daawadayaal haddaan soo qabto xubnaha ugu muhiimsan barnaamijkeena wargeysada waxyaabaha quraan shimbiro basaasina oo khaatiyaan ka joogan wadamada kamid ah dalkaasi Mareykanka haddaba waxaan wada ogsoonahay daawadayaal idinka qayb idin kamid ah inay ku murmaan oo yiraahdaan waa maxay shimbirahan basaasiinta noqday dad baaba lagu ogaa basaasiinta amba inay sirdoon u noqdaan wadamadooda laakiin wadamadan dalkaasi Mareykanku waxa ay khaatiyaan amba wadnaha amba dhunta uga degi waayay shimbiro basaasiin noqday warbixintaas waxa qoray wargeyska war sugan ee ka soo baxay magaalada Hargeysa cadadkiisa ku taariikhaysnaa 7 bisha 3 2017 shimbir loo soo dhiibay telefoonka gacanta iyo xarig USB stack si ay u geyso maxbuus ku xidhan xabsi ku yaala dalkaasi Colombia qaaradan Koonfur Amerika ayaa ilaaladu gacanta ay ku dhigeen ilaalada xabsigaas la yiraahdo Captain Prison oo ku yaala dalkaasi Colombia ayaa shimbirtan xabsiga dhexdiisa ku qabtay iyagoo ka war helay in ay dhabarka ku xambaarsanayd bushqada ay ugu jireen moobile iyo waxyaabo ka mamnuuca dadka maxaabiista qalabkan oo dhabarka shimbirta casri ah loo soo saaray ayaa ilaaladu ay soo saareen balse markii qalabkaasi laga qaaday la sii daayay shimbirtaasi iyada oo bushqadaasi la furay lagana dhexelay moobile iyo USB stack waxaana ilaalada xabsigaasi ogaadeen inay hore loo isticmaalay shimbirtan iyaga oo baaritaan ku haya cidda loo waday iyo xabsiga ku jira mana aha markii ugu horeysay ee shimbir loo isticmaalo in xabsiga waxyaabo kootarabaan ah ay soo geliso ama ay maxbuus u keento alaab khatar ah oo ammaanka xabsiga wax yeeli karta waxay hore caan ugu ahaayeen shimbiruhu inay xabsiga iyo dadka dibadda joogaaba u kala gudbiyaan daroogooyinka kookinta iyo cabiniska gaar ahaan waxa ayna caan ku noqotay arintan xabsiga Koonfur Amerika sanadihii u dambeeyay ilaalada xabsigaasi khaati ay ka taagnaayeen shimbiraha loo adeegsado basaasnimada waa tahay daawadayaal xubintaas aadka u xiisaha badan leh iyo shimbiraha basaasiinta noqday ee khaatiyan kaga joogaan wadamada horumaray haddaan intaas kaga imaado xubin kale oo iyada lafteedu aad u xiiso badan oo dad badan idinka ka mid aan filayo in ay u bogi doonaan xubintaas waxa weeyaan dalka Nigeria ayaa shacabkooda uga digay inay u safraan dalka Mareykanka haddaba dalka Mareykanka malaha isaga laftiisa dadu soo saaraa la arkay laakiin dalkani waxay ku tashadeen in ay iskaba daayaanba inay tagaanba dalkaasi oo ay u safraan warbixintaas waxa qoray aadka u xiisaha badan leh wargeyska Somaliland Today ee ka soo baxay magaalada Hargeysa cadadkiisa ku taariikhaysnaa 7 bisha 3 2017 warbixintaasna waxaynu akhri doontaa wariyaheena Muna Faysal dowladda Nigeria ayaa muwaadiniinteeda u sheegtay in aanay u safrin dalka Mareykanka kadib markii dadkeeda oo sitay dalku gal saxa la xidhay waxaa la sheegay in dadkaasi lagu xidhay garoomada xilli ay galayeen dalkaasi Mareykanka warbixin ka soo baxday xafiiska taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha u qaabilsan arrimaha dibadda Dabiri Erowa ayaa lagu sheegay digniinta usbuucyadii la soo dhaafay waxa xafiiska la soo gaarsiiyay kiiska ah in dad Nigerian ah oo dalku gal sax ah haysta loo diiday in ay galaan Mareykanka dibna loogu soo celiyay dalkooda ayaa la yiri qoraalkan dadkaasi oo dhan waxa la soo saaray diyaaradihii ugu dhawaa ee Nigeria u soo socday waana lagala noqday dalku galka ama fiisaha Dabiri Erowa waxa ay sheegtay in aan la bixin sababta maamulka socdaalka Mareykanku ay ugu diideen muwaadiniinteeda inay dalkaasi galaan waxay ku boorisay in dadka aanan u socon waxyaabo muhiim ah ay ka fikiraan inay baajiyaan safaradooda ama dib u dhigaan
ilaa ay kala cadaanayso sababta dadka loo soo celiyey. waa tahay daawadayaal xubintaasi haddaan aadka u xiisaha badan leh iyo dalka Nigeria aan dib uga soo noqdo oo dalkiisa u diiday inay safraan dal xagga ay Mareykanka warbixinta xigta oo aan filayo inay aad iyada lafteedu u xiiso badan tahay oo dad badan oo xanuunkaas la tacaala ay wax badan ka iftiimin doonto. daraasaddan waxay sheegi doontaa daawo rajo laga qabo xanuunka faraha baas ku haya aadamaha loo yaqaano HIV/AIDS-ka oo ay qoray wargeyska Geeska Afrika ka soo baxa magaalada Hargeysa. cadadkiisa ku taariikhaysnaa 7 bisha 3 2017 warbixintaasna aadka u xiisaha badan leh waliba dhinacyo badan taabanaysa daawadayaal aan si wanaagsan aan uga wada bogano. Barcelona sanado badan dadaal joogto ah loogu jiray in daawo loo helo cudurrada aadamaha aqoonta beeniyay ee dila habdhiska difaaca jirka ee HIV/AIDS-ka ayaa imika soo muuqda bidhaan muujinaysa in la gaadhay waqtigii laga itaal roonaan lahaa. daawo cusub oo xeeldheerayaal u dhashay dalkaasi Spain ayaa sameeyeen ayaa ilaa hadda si buuxda ay caafimaad ugu heleen 5 ruux oo horey u qabay cudurrada HIV/AIDS-ka kadibna markii ay 7 bilood joogto u isticmaaleen. cudurradan ayaa dawada ugu fiican ee hadda loo hayaa ay tahay inuu qofku ku dhaca noloshiisa inta ka hadhay qaato dawooyinka u sahlaya in cudurkan uu la noolaado. sidaas awgeed waxay cilmi baadhayaashu rajo weyn ay ka qabaan in daawadan cusub ay yeelato waxtar weyn oo bukaanada ka maarmi karaan inay daawada joogto ah u cunaan isla markaasna ay ka helayaan dawo ku habboon cudurka disha. 13 ruux oo ka mid ah dadka qaba cudurka ay ku tabarucday in lagu mudo dawadan cusub muddo hadda laga joogo 7 bilood laakiin dadkaasi ayaa 3 ka mid ah lagu arkay in ay weli fayraska cudurka HIV-ga uu jirkooda ku jiro halka 5 ruux oo gabi ahaanba ka tagay. arrintan waxa ay ugu noqotay dunida cilmi baadhayaasha maadaama oo aan horay ayna u dhicin la helo daawo tirtirta amba lagaga maarmo tijaabadan oo ka kaxaynaysa cudurkan waxaana ay abuurtay rajo ah in dawadani oo la sii horumariya u noqon doonto dawada cudurkan ee muddada dheer la naawilayay. waa tahay daawadayaal xubinta iyo xanuunka la tacaalistiisa haddaan intaasi kaga imaado warbixinta xigto iyadana dhanka arrimaha nolosha ku saabsan welibana qoyska haddaan soo qabto guurku wuxuu ka hortagaa ay warbixintan leedahay xanuuno badan oo ku dhaca bini'aadamka. warbixintaas waxaa qoray wargeyska Ogaal ee ka soo baxa magaalada Hargeysa cadadkiisii ku taariikhaysnaa 7 bisha 3 2017 haddaba warbixintaas guurka iyo xanuunadu ka hortago waxaan u wargeyska waxa guuleystay labadii jacaylkooda hore u sii wadaa siino xoojiya kadibna markuu alalaaska aroosku dhammaado. waxaa guuleystay labada garta in guurkoodu ka dhigan yahay guri ay wadajir u dhiseen mid kastaana uu ku dadaalo gudashada kaalinta kaga aadan. waxaa guuleystay labadii isxasuusiya xuska alle diintana si wadajira u barta quraan akhriska wanaagana isfaraa xumahana iska reeba isuna duceeya. waxaa guuleystay sa'iga iyo xaaskiisa goorta ay doodaan aan marnaba kor hadalkooda u qaadin isna odhaan ereyo qalbi jaba. waxaa guuleystay sa'iga iyo xaaskiisa isku muujiya qadarin iyo xushmad iskulana dhaqma dabeecad iyo akhlaaq wanaag. waxaa guuleystay labadii aan jacaylkooda baraha bulshada ku soo bandhigin balse iyaga dhexdooda isku muujiya. waxaa guuleystay labadii ku fikira koritaanka ubadkooda qowl iyo ficil wax ku bara una noqda tusaale fiican oo ay ku daydaan. waxaa guuleystay labadii isdaryeela isku daacad ahaada si dadnimo lehna u guta waajibaadkooda dhowrana xaqa iyo xuquuqda isku leeyihiin. waxaa guuleystay labadii ka shaqeeya xalinta xurgufta hadday dhex marto iyaga oo xigto aanay dhexgelin. waxaa guuleystay labadii garowsaday in maalinta ay isguursadeen ay ka gudbeen baashaalka iyo waqti lumiskii bilaa macniga kaga bixi jiray ayna ku mashquulaan hagaajinta hoygooda iyo horumarinta naftooda iyo qoyskoodaba. waa tahay daawadayaal weli waxaan bartanka kaga jirnaa barnaamijkeena wargeysada iyo waxyaabaha quraan oo si toos ah idinkaga imanaya shaashada telefishinka caalamiga Sab TV xarunta ku leeyahay magaalada Hargeysa. barnaamijkan wargeysada waxaan ugu talagalnay daawadayaasheena ka faa'iideystaan dhinaca dhaqaalaha dhinaca horumarka iyo waliba caafimaadka in waxyaalo badan ka tari doonto. haddaan ku sii soqo barnaamijkeena wargeysada iyo qodobka xiga madaxweynaha dalkaasi Turkiga
turkiga Erdogan oo ku eedeeyay maamulka dalkaasi Jarmalka inay yihiin naasi warbixintaasi waxa qoray wargeyska war sugan ee ka soo baxay magaalada Hargeysa cadadkiisa ku taariikhaysana 7 bisha 3 2017 warbixintaasina waxa inoo akhri doontaa waryaheena Muna Faysal madaxweynaha dalka Turkiga ayaa saraakiisha Jarmalka la simay kuwii naasiyiinta arintan ayaana qayb ka ah dagaal si qadhaadhaanaya oo dhanka afka ah oo labada dal u dhaxeeya Recep Tayyip Erdogan ayaa hadalkan kulul jeediyay kadib markii maamulka Jarmalka ay baajiyeen isu soo bax loogu talagalay in taageero lagaga raadiyo dadka asal ahaan Turkiga ka soo jeeda ee Jarmalka ku nool ee codka ka dhiiban doona afti muhiim ah oo la qaban doono sida aad u dhaqmaysaan kama duwana sidii kuwii naasigii ee hore ayuu yiri madaxweyne Erdogan wasiirka cadaaladda ee Jarmalka Heiko Maas ayaa hadalkan Erdogan ku tilmaamay mid fool xun oo laga xishoodo dad lagu qiyaasay 1.4 milyan oo ruux oo Turkiga u dhashay oo ku nool dalka Jarmalka ayaa xaq u leh in ay codeeyaan aftida bisha afaraad dhacaysa taas oo haddii la meel mariyo awoodo dheeraad ah siin doonta Erdogan haddii la meel mariyo dastuurka cusub ee Erdogan wuxuu heli doonaa awoodo cusub oo dhanka miisaaniyadda ah magacaabidda wasiirada iyo garsoorayaasha iyo inuu awood u yeesho in uu kala diro baarlamaanka waa tahay daawadayaal xubintaas haddaan intaasi kaga imaado dalkaasi Turkiga xubinta xigta waa xubiniyada lafteedu dad badan wax badan ay iska weydiin doonaan warbixintani waxay tahay warqad 80 jeer wax lagu daabici karo faahfaahinta farsamadaasna ay ku shaqeyn doontana wargeyska inoo faahfaahin doona iyo wariyaheena Cali Wacays warbixintaas waxa qoray wargeyska Geeska Afrika ee ka soo baxay magaalada Hargeysa cadadkiisa ku taariikhaysana 7 bisha 3 2017 warqadda wax ku daabaco laakiin marka aad ka maaranto ha tuurin waayo dib ayaa aad wax kale ugu daabacan kartaa waa curin cusub oo kaa caawinaysa inaad marar badan dib u isticmaasho isla warqadda aad hore wax ugu daabacday adigoo adeegsanaya maado dib u tirtiraysa qoraalka koox khubaro oo ka tirsan jaamacadda California Riverside ee dalka Mareykanka ayaa ikhtiraacday nooc cusub oo warqad ah oo ay suurtagal tahay in dib loo isticmaalo in ka badan 80 jeer warqadan ayaa marka hore aanu mishiinka daabacaadu khad ku qorayn balse waxa uu daabicisteeda u isticmaalayaa ilays sida qoraalka caadiga ah ee muuqanaya kadib waxaa la gelinayaa qayb mishiinka ka mid ah oo iyada oo adeegsanaysa maado daabacan iyo hirar kuleyl ah dib uga tirtiraysa qoraalkii hore uga muuqday warqadana ka dhigaysa mid mar labaad si caadi ah loo isticmaali karo kooxda khubarada ah ee hal-abuurkan cusub keentay waxaa hogaaminayay Yadong Yang oo ah bare sare oo cilmiga kiimikada ka dhiga jaamacadda California Riverside isla markaasina xubin muhiim ah ka haya hawsha daabacada aan khadka la adeegsanayn ee warqadani lagu daabacay ayaa mar uu faahfaahiyay sheegay in mishiinkan daabacadu uu warqadda ka dhigayo midab cirka oo kala ah halka qoraalkana uu noqonayo caddaan haddii kale la isweydaarin karo oo qoraalku noqonayo midabkaasi buluuga furan ah warqaduna caddaan iyada oo labada jeerba qoraalku uu muuqanayo si qurux badan oo la mid ah qoraalka caadiga ah ee khadka la isticmaalo ceebta ugu weyn ee farsamadani caqabada ku noqonaysa ayaa ah in qoraalka warqadan lagu dhigaa uu sii jiri karo uun muddo ilaa 5 maalmood ah kadibna uu si tartiib ah isu masaxayo waxaa iyadana hawl ah in masaxaadda warqadani marka la diyaarinayo in ay mar labaad wax ku qormaan ay qaadanayso waqti gaadhaya ilaa 10 daqiiqo iyo dhibta kale oo ah in heerkulka uu mishiinku isticmaalaya gaadhayo ilaa 121 digrii oo cabirka Celsius ah waxaase ay aad u anfacaysaa dadka waraaqaha qoraalka ah muddada gaaban isticmaala kadib iska jeexjeexa kuwaasi oo ay ka furanayso kharash badan oo ku baxa waraaqaha maadaama ay suurto galayso inuu halkii warqad isticmaalo ilaa 80 jeer sidoo kale waxa ay u badbaadinaysaa khad badan waraaqahani ayaa weli ku jira tijaabadii oo aan suuqyada iibka la keenin laakiin waxaa jira rajo
badan oo laga qabo in ay suuq xaami ah ka heli doonto goobaha ganacsi ee sida joogtada ah u daabaca waraaqaha muddada gaaban loo baahan yahay, inkasta oo ay wax badani ku xidhnaan doonaan qiimaha u dambeeya ee warqadani suuqa ku soo gasho. waa tahay daawadayaal waxaan soo gaadhnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena wargeysada. aan soo qabto xubinteena ugu dambaysa oo iyada lafteedu aan filayo inay aad u xiiso badan tahay ku biiridda tiimka loo yaqaano Chelsea iyo barashada luuqadda maxaa kala haysta. ciyaaryahano far badan oo u dhashay Yurub lafteeda ayaa lagu xidhay inay luuqadda ingiriisiga bartaan si ay uga mid noqdaan naadiga Blueska leeyahay. warbixintaas waxa qoray wargeyska Ogaal ee ka soo baxa magaalada Hargeysa, cadadkiisa ku taariikhaysnaa 7 bisha 3 2017. warbixintaasna waxay noo akhriyi doontaa wariyaheena Muna Faysal. difaaca Juventus Leonardo ayaa qiray in uu baranayay luuqadda Ingiriisida xilli uu isu diyaarinayay ka tegidda Serie A-ga, balse uu go'aansaday in uu sii joogo. 29 jirkan waxaa si xoog leh loola xidhiidhinayay Stamford Bridge tan iyo markii uu majaraha kooxda London galbeedkeeda ka dhisan u qabtay Antonio Conte. difaacan waxaa kaydka la dhigay kulankii Champions League ee Porto kadib markii uu kala duwanaansho soo dhex galay isaga iyo Massimiliano, balse shabaqa ayuu soo taabtay ciyaartii Udinese. waa tahay daawadayaal intaa waxay nooga barnaamijkeeni wargeysyada oo kala socoteen shaashada telefishinka caalamiga Saab TV xaruntu ku leeyahay magaalada Hargeysa. barnaamijka waxa idin socodsiinay anigoo Xamse Xirse Xayda. barnaamijka waxa igala qayb qaatay dhinaca farsamada Cumar Afgooye, waliba isla kamarada waa isla Cumar Afgooye Altamiimi. akhyaarta kala duwan ee barnaamijka igala qayb qaadatayna aad baan ugu mahadnaqayaa. waxaan leeyahay jasaakumullahu khayran. intaan barnaamij lamida dib ugu kulmi doono waxaan iga tagayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh.